goor subaxa saacadu markay ahayd 6:43 subaxnimo xarunta booliiska magaalada Wilmington ee gobolka North Carolina waxaa soo dhacay wicitaan degdeg ah ee emergency call-ka. Cod dumar ah ayaa laga maqlay taleefanka. Markii uu qabtay sarkaalkii wicitaanka qaabilsanaa waxaa u muuqday qof si xad dhaaf ah u walwalsan oo ooyeysa. Waxay tidhi, fadlan ii caawiya, wax baa dhacay, qof meyd ah baa halkan yaal, kaalaya si degdeg ah ii caawiya. Sarkaalka wicitaanka qabtay ayaa isku dayay inuu dejiyo gabadha, isagoo weydiiyey, haye waan ku maqlaynaa, fadlan isdeji, magacaa, halkee joogtaa? Balse gabadhu faahfaahin badan ma bixin. Waxa kaliya ay sheegtay meel u dhow buundada Ravenswood, goob cidlo ah oo aanan dad badan mar walba ka agdhoweyn, gaar ahaan subaxnimada hore. Waxaase la ogaa in halkaas horey looga helay kiisas la mid ah kan oo kale, taasoo booliiska u muujisay in xaaladdu ay aad u culus tahay. 2 baabuur oo booliis ah ayaa si degdeg ah halkaasi loogu diray. Markii ay gaareen waxay arkeen gabar fadhida meel u dhow halka wicitaanku ka yimi. Indhaheedu waxay noqdeen casaan oohin darteed, dharkeedana waxay noqdeen kuwa qoyan. Taleefanka ayaa weli gacanta ugu jiray, wax cid kale ahna meesha kama muuqan, keligeed ayay ahayd. Markii la weydiiyey waxa dhacay, waxay tidhi, waxaan maqlayay qaylo, markaan imaadayna cidna ma arag, markaas ayaan idin soo wacay. Laakiin sheekadu halkaas kama bilaaban. Markii booliisku baaritaankooda bilaabeen waxay heleen meydka Eric Donovan, nin muddo 19 maalmood ka hor la la'aa. Eric waxa uu ahaa hantiile caan ah, lahaana dhowr guri iyo hanti lagu qiyaasay ilaa $1 milyan. Gabadhii meesha lagu arkay waxaa lagu magacaabayay Vanessa Lang. Waxay ahayd 28 jir, asal ahaana ka soo jeeda magaalada Charlotte. Waxay sheegtay inay u timid Wilmington si ay saaxiibteed u booqato, laakiin su'aalaha booliisku weydiinayeen ee Vanessa waxay noqdeen kuwa isu soo taraya, taasoo u muuqatay in shaki ku jiro xagga gabadha. Maxay u joogtay goob aysan iyadu degnayn subax hore? Maxay ahayd sababta indhaheeda iyo gacmaheeda looga dareemay wax laga shakin karo? Maxaa keligeed halkaas waqtigaas dhigay, iyadoo la ogyahayna halkaas inay tahay meel dadku ay aad uga baqaan? Ugu dambeyn, booliisku waxay xireen Vanessa waxayna bilaabeen baaritaan dheeri ah. Asalaamu calaykum saaxiibayaal, sheekadan waa mid la yaab leh, welina baaritaankeedii lama dhammaystirin. Miyaad diyaar u tahay inaad nala rumaysato safarkan xiisaha leh? Kusoo dhawow, kusoo biir kanaalkeena, muuqaalkana like saar. Waxaan galaynaa gudaha sheekada. Yaa dhab ahaantii ka dambeeyey dilka Eric Donovan ee hantiilaha ahaa. Waxaan gudaha u galaynaa qaybta labaad ee sheekadeena. Maalmo kadib markii ay isbarteen Eric Donovan iyo Bobby, xiriirkooda waxa uu bedelay mid adag oo ganacsi ku dhisan. Waxay noqdeen 2 saaxiibo oo si wanaagsan iskula jaanqaaday, wadaagayana fikradaha, hamiga iyo horumarinta shirkadooda. Ganacsigii Eric kor ayuu u kacay, maalgelimo badan ayaa ku soo biiray, fursado cusubna waa ay soo ifbaxeen. Laakiin hal arrin baa jirtay. Bobby wuxuu mar walba damacsanaa inuu la wareego ganacsiga Eric oo dhan. Hantidiisa ayuu rabay inuu yeesho guud ahaan. Muddo sannado ah kadib, Eric iyo Bobby waxay tageen shir ganacsi oo ka dhacayay Faransiiska. Habeennimadii shirkaas, Eric ayaa waxaa soo wacay taleefan degdeg ah. Qofka soo wacay koolka wuxuu ka socday mid ka mid ah madaxda shirkadiisa oo u sheegay in musiibo dhaqaale dhacday, ganacsigiisuna khasaare weyn ayuu galay, $10,000 oo hantidiisa ayaa luntay. Eric si degdeg ah ayuu ula xiriiray maamulayaasha sare ee shirkadda. Waxay u sheegeen in xaaladda ay si tartiib ah u xalin doonaan, balse dhibaatooyinka dhabta ah waxay soo baxeen markuu ogaaday in Bobby ee saaxiibkiisa lafdhabarta u ahaa ganacsiga ka baxay wadaagga shirkadda ee sheerka, lana yimid shirkadda cusub oo tartan adag la galay. Ganacsigii Eric wuxuu hoos u dhacay, qiimaha saamiyada shirkadiisa way luntay, maalgashadayaal badanna way isaga baxeen. Laakiin Eric ma uusan quusan. Wuxuu hoos u dhigay qiimaha saamiyada shirkadiisa si uu dad badan ugu dhiirigeliyo inay dib u maalgeliyaan. Istaraatiijiyadan waxay keentay in dad badani ku soo laabtaan, isla markaana ganacsigii Eric uu ka kaco heer hoosaad ah ilaa 34%, ugana hormaray shirkaddii Bobby uu samaystay. Bobby arrinkaas aad buu uga carooday. Waxaa laga yaabaa inaad hadda isleedahay waa kan dambiilaha oo ka carooday guusha Eric, laakiin ha degdegin, runtu weli lama ogaan. Dhowr bilood kadib, Eric wuxuu xiriir la yeeshay gabar lagu magacaabo Vanessa Lang. Gabadhan inta badan bulshada kama dhex muuqan jirin, xiriirkooda Eric si hoose ayuu u hayay.
xitaa shaqaalaha shirkadda ma aysan ogeyn. Muddo sanad ku dhow kadib, hal mar ayaa la waayay Eric. Qofkii ugu horreeyay ee dareemay maqnaanshihiisa waxa uu ahaa walaalkiis oo ay wada shaqayn jireen. Wuxuu la xiriiray booliiska isagoo sheegay in Eric uu safar ku jiray, balse wax war ah laga waayay muddo toddobaad ah. Kiiska waxaa la wareegay FBI-da waxayna bilaabeen baaritaan buuxa. 14 maalmood kadib, subaxii hore saacadu markay ahayd 6:43 oo subaxnimo ah, booliiska waxaa soo wacday gabar ooyeysa kuna dhawaaqaysa inay meyd aragtay oo waddada yaal. Booliiskii iyo FBI-dii markii ay yimaadeen waxa ay heleen meydkii Eric Donovan. Walaalkiis ayaa goobta yimi markii uu arkay Vanessa. Wuxuu si cad ugu yiri, tan iyo maalintii gabadha noloshiisa ku soo biirtay, wax walba way isbedeleen. Maalintii ay isbarteen waxay noqotay bilowga dhammaan waxyaabihii xumaa. Waa sarkaal ka mid ah saraakiisha booliiska halkaas joogay ayuu si hoos ugu sheegay, wuxuuna ku eedeynayay inay doonaysay hantidiisa. Booliiska waxay Vanessa u xireen baaritaan dheeraad ah, waxaana markaa loo yeeray walaalka Eric iyo Bobby iyo maamulaha guud ee shirkaddii Eric. Dhammaantood waxay ku kulmeen hal qol. Hal su'aal ayaa la weydiiyey: ma jirtaa qof u dagaal galay ama doodo wax noocaas ka dhaxeeyay? Wax kasta noo sheega, ayuu yiri booliiska. Maamulaha shirkadda wuxuu tilmaamay Bobby, walaalkiisna wuxuu yiri, waxaan arkay iyaga oo marar badan iskhilaafaya, laakiin qof guul gaaraya cadow kama marna, ayuu yiri. Hadalkaas ayaa dhaliyay shaki badan, taasoo FBI-da ay isla markiiba bilaabeen baaritaan kii hore ka daran. Markaa kadib, booliisku waxay u yeereen Vanessa. Markii la weydiiyey inay Eric aqoon u leedahay, waxay tiri, isma naqaan, weligeena isma arag. Laakiin arrinkaasi cadeymaha ayaa bilaabay inay ka hor yimaadaan hadalkeeda. DNA laga qaaday dharkeeda waxaa laga helay raad. Hoygeeda waxaa laga helay $3,200. CCTV-yada ee magaalada waxay muujiyeen iyada iyo Eric oo dhowr jeer wada socday. Waxaa kaloo muuqday iyada oo habeen hore imaanaysa shirkadda Eric, iyada oo wadata gaari qaali ah, iyada oo xilliyadii hore aysan ku imaan jirin gaari, balse habeenkan waxay ahayd habeenkii la waayay Eric, iyada oo markaana wadatay gaari qaali ah. Iyadu mar walba waxay iska ilaalin jirtay inay kaamaradaha qabtaan, balse habeenkaas waxay samaysay qalad, waana isla habeenkii la waayay Eric. Kadibna telefoon qarsoodi ah ayay la soo baxday. Vanessa waxay wacday nin aan magaciisa la garanaynin. Codkeedii waa la duubayay iyada oo leh, haddii aan tan qabto lacagta waan helayaa Soomaha, qofna ima tuhmi doono, waxaana loo arki doonaa inaan argagaxay markii aan helay meydka. Hadalkani wuxuu muujinayay qorshe hore loo dejiyey, laakiin cidda Vanessa kula heshiisay qorshahan weli lama oga. Waxaa muuqata inaysan keligeed ahayn. Halkaas ayaa waxay noqotay bilowgii in wax kasta oo Vanessa sheegtay ay noqdaan been la fashiliyey. Booliisku waxay ku qasbeen inay qirato runta. Muddo ayay aamusnayd, laakiinse markay garatay inaysan jirin waddo kale oo u furan, waxay si tartiib ah ugu sheegtay sarkaalka. Wuu igu kalsoonaan jiray, ayay ku tiri. Wuxuu iga dhigay qof aan dareemo inaan muhiim ahay, laakiin markaan ogaaday hantidiisa, qof ayaa ila soo xiriiray, wuxuuna ii sheegay haddii aan hawsha dhammeeyo inaan la wareegi doono dhammaan hantidiisa. Booliisku way weydiiyeen qofkaas ciduu ahaa, laakiin waxay sheegtay inaysan garanaynin. Kadib waxay tiri, waxaan go'aansaday inaan qaato go'aankaas si aan u bilaabo nolol cusub, balse waxay noqotay sheeko qaldan, mid aanan weligeed ka fikirin cawaaqibkeeda. Laakiin sarkaalka ayaa u sheegay Eric, adigu ma aadan dilin, haddaba yaa dilay? Arrinta cajaa'ibka waxay noqotay in qofka dilka geystay uusan ahayn Vanessa, balse uu ahaa qof kale, qof aanan la garan karin markiiba. Balse marka ay baaritaanku sii socdeen, waxaa la ogaaday in qoorta Eric laga helay cirbad lagu muday. Sidoo kale jirkiis waxaa laga helay gacmihiisa inay ku xirnaayeen xarig. Sidoo kale waxaa la ogaaday in Eric gacan loo qaaday oo markaana qof uu garaacay. Calaamadihii waxay muujiyeen. Ta koowaad waxay ahayd in sun suuxdin ah laga helay qoortiisa. Markii Vanessa la weydiiyey cirbadaas, waxay aad uga warwareegatay inay wax faahfaahin bixiso, laakiin markii dambe waa ay sheegtay oo waxay tiri, waxaan u waday meel cidla ah, gaarigayga ayaan waday, isaguna wuu i weydiinayay halkan, isaguna wuxuu igu dhahayay xageenu soconaa, aniguna waxaan ugu jawaabay surprise baan kuu hayaa caawa. Wuu i rumaysan waayey marka hore, balse ugu dambeyn wuu i qoslay sida caadada ahaydba. Markii aan gaarnay meel xasiloon oo cidla ah, waxaan si lama filaan ah ula soo baxay telefoonkayga aniga oo leh waan joogaa. Markaas ayuu dareemay shaki,
wuxuuna igu yidhi wax baa qaldan. Waxaan iska dhigay inaan waxba ogeyn. Taleefankiisii horena aniga ayaa horey uga qaatay si uusan qofna ula xiriirin. Markii uu gaariga ka degay oo isku dayay inuu baxsado, wuxuu igu yidhi haddii wax igu dhacaan ogow inaanan ku cafin doonin. Waxaan furay albaabka waxaana dhahay sabrayska aan kuu sheegay waa kan eeg. Wuxuu arkay walaalkiisa oo ka soo baxaya mugdi kaga dambeeya isaga. Inta uusan la hadlayna walaalkiis ayaa qoorta uga duray cirbad suuxin ah. Kadib kursi ayaan ku xirnay buu yidhi, waxaana ku bilownay cagajuglayn, laakiin wuu diiday inuu saxiixo waraaqaha hantida. 14 cisho ayaan garaacaynay, haddana wuu diiday. Walaalkiis ayaa xanaaqay oo yidhi waan dilayaa. Wuxuuna u adeegsaday cirbad loogu talagalay in wadnaha lagu joojiyo si markuu dhinto uu isagu ula wareego hantida, maadaama uusan jirin qof kale oo la dhaxlayo hantida. Gabadhana qorshe kale ayuu la damacsanaa oo ahaa inuu farta ku fiiqo booliiska, kadibna ay iyadu xiraan. Sidiina waa uu sameeyey. Intaa kadibna qorshahoodu waxa uu ahaa in arrinta laga dhigo shil, laakiin si fudud uma aysan shaqayn. Markaas ay go'aansadeen in meydka la geeyo halkaas cidlada ah. Aniguna waxaan iska dhigayaa ayay tiri qof aan waxba ogeyn. Tixraacyo badan ayaan iska ilaaliyey si aan ula xiriirin falka, laakiin sidii aan filayay wax uma dhicin. Dabcan gabadh duqmad bay ahaydo. 6 bilood kadib waxaa si dhab ah loo ogaaday in walaalkiis iyo gabadha ay ahaayeen dilaayaasha dhabta ah sheekadeena. Laakiin booliisku waxay dib ka fahmeen ka ogaadeen in qorshahan uu ka weynaa labadooda. Baaritaan dheer ah ayaa dib u bilowday, laakiin booliisku waxay go'aansadeen in dib loo dhigo baaritaanka, waayo wax badan oo iyadu aysan sheegin ayaa laga helay jirka Eric, taasoona keentay in dib loo dhigo maxkamadeyntiisa. Haddaba maxaad is leedahay way qarsoon yihiin? Sheekadeena maanta halkaas ayay ku eg tahay. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir, muuqaalkana like noo saara. Mahadsanidin. Bye bye.